barnaamijka maangal waxa uu kobcin doonaa garaadka maskaxdaada waxaana aad ka heli doontaa xogo dheeri ah oo ku qotoma waayo aragnimo iyo aqoon xirfadaysan. horta laba qodob baa sababay ayaan anigu aaminsanahay in wariyaashu ay ku mashquulsanaadaan siyaasadda kaliya maahan waxyaabaha dawladda ku xidhan inay ku mashquulsanaadaan oo xataa wasaaradda waxbarashada ay busy ku noqdaan intii iskuulada ku mashquuli lahaayeen inay gobolka busy ku noqdaan intii xaaladda deegaanka ku mashquuli lahaayeen inay yacni wasaaradaha iyo dawladda inay kaaga dhawaadaan waxyaabaha sababay oo waliba siyaasaddu ugu badan tahay waxaa ka mid ah abtirsiinyaha warbaahinta Soomaalida oo dhan xilligii 1960 markaan xorriyadda qaadanay waxaanu helnay warbaahin madax bannaan oo xor ah oo si sax ah u shaqeysa markii afgambigu u dhacay oo dawladdii la afgambiyay shacabka ahayd waxa timid dawlad military ah dawladda military ah marka waxay u baahatay in dadkii loo hanuuniyo macnaha in iyaga lagu shubo wixii aaminsanaayeen sidaas daraadeed waxay meesha ka saareen warbaahintii madaxa bannaaneed waxaana ay samaysteen warbaahin afka xukuumadda ku hadasha warbaahinta afka xukuumadda ku hadasha wariyaasha waxaa loo qaybiyay wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda marka wariye kasta waxaa la yiri waxaad ka soo waramaysaa meel heblaayo ayuu attach ku noqday reportka la aadayahay waa inuu ahaado mid dawladdu ay ogolaanshiyo bixisay oo ama gudoomiye uu tagayo ama uu mas'uul taliye uu tagayo cid dawladda ka tirsan inay meesha joogto saas daraadeed marka wariyaashu waxay kuwa badan wax ku barteen systemkaas dawladdii militariga ahayd in marka wariye meel aadayo uu ka fasax qaato dawladda oo ay waliba iyadu ka hayso oo waxa la sii deynay xataa dawladdu ay go'aan ka lahaato halkaas waa qodob oo sabab weeyaan inaan ilaa hadda ku mashquulsanaano siyaasadii oo aan dawladdii aan daba socono talabaad waxa weeye markii dalka la soo galay dawladda dib loo dhisay waxa loo baahday in institutionadii dalka oo dhan laga bedelo systemkii dawladdii militariga ahayd oo loo bedelo dimuqraadiyadda la qaatay sidaan dalkan dimuqraadigu yahay xorta loo yahay waa la bedelay laakiin warbaahintii ismaysa bedelin wariyaashii isma aysa bedelin oo kuwa la yiraahdo way isbedeleen waxa badanaa waxa la yiraahdaa waa kuwa ka yimid iyaguna jabhadihii ka yimid oo kadibna ku soo tababartay dawladda hal la dagaalo ma aha labada dhinacba midna ma aha dawladda hal la mucaaradana ma aha wariyanimadu dawladda hal loo gulwadayna ma aha wariyanimadu waa dhacaan saxda hal la sheego marka labada qodob baa la kala noqday marka waxyaabaha kale sababta u ana waxa weeyaan institutionska warbaahintu waxay ka mid yihiin xarumaha la doonayo in ay fikirka dadka wax ka bedelaan inay dadka jiheeyaan haddii warbaahin bilaa qorshe la furto oo aanay qorshe yeelan waxa hubaal ah waxay sheegaysaa macna yeelan mayo institution badan waxa loo furay bilaa qorshe ama waxa loo furay qorshe oo gaaban oo ah xildhibaan hebel ku campaign gareeyo ama ganacsiga hebel lagu taageero oo gaabnaa markaas waqti yar kooban joogay ama xisbi hebel loogu ololeeyo ama lacag laga helo oo aan qorshe xataa u samaysnayn marka wax yaroo si yaroo degdeg u samaysmay u badan yihiin sidaas degdeg marka meesha ugu dhow ee wax laga heli karaahi waxay noqotay in qabax laga qaato dadkan dawladda ka tirsan ama shuruur laga qaato inta la raaco wariye loo diro la yiraahdo ka soo warano yani waxay qabtaan xayisiis ahaan aan uga dhigno waxay ku soo dartay warbaahinta Soomaalidu sharciga saxaafadda wax aan ku jirin oo ah advertisement news ama commercial news oo aan sharciga adduunka ku jirin warkii lacag lagu qaato marka lacag raadin way keentay taariikhda iyo halkan ka nimidna sabab bay u tahay aqoon iyo qorshe la'aan jirtana sabab bay u tahay marka saddexda qodob ayaa asal u ah in wariyaashu ay ku mashquulsanaadaan siyaasadda taas marka wariyaashu maxay ka dhigtay waxay ka dhigtay in la adeegsado waxay ka dhigtay wariyaashii iyo inay kala go'aan society-gii waxa bulshada inay kala go'aan waxaad arkaysaa haddii xiriyaha barakacayaasha ama meelaha ay ku nool yihiin dadka tabarta yar haddii kaamirad aanu maanta la aadno dadku way nala dagaalayaan carabtu way dhagax tuuraysaa dadku noo hadlamayaan maxaa yeelay waxay wariye yaqaanaan oo ay arkaan marka ama uu hay'ad la socdo ama uu mas'uul dawladeed la socdo buu u tagaa marka waxay xumaysay sawirkii
waxay يعني noo keentay khatar badan waxay yaraysay aaminaadii waxay sii badisay kuturkuteenti dadka ayay badisay oo hadda dadkii baaba kuturkuteen baa suuqa la geliyaa tiiba warbaahinta ku mashquulshaa waa bilaa qorshaha in warbaahinta hadda meesha loo jeedo ku mashquulsho waxa sabab u ah qorshe la'aanta waxyaabaha tusaalaha waxa kamid ah warbaahinta xilliga kaliya maalinka kaliya ay ugu wareer tahay waa maalinka jimcaha ah sababtuna wax kale ma ahane dawladii baa fasaxa oo aan shaqeyn maalinka dawladdu shaqeyn ma shaqeeyaan marka dhinaca kale laakiin ahayd inay u shaqeeyaan oo ah in dadka caadiga ah noloshooda laga waramo xitaa dawladdu saas jecesha xitaa cid walba oo wax baratay wax garanaysa waxay jeceshahay in wax noloshiisa saameynaya laga waramo wasiirka waxa saameynaya xaaladda suuqa way saameynaysaa bariiska xilligu maray nadaafadda suuqa way saameynaysaa maanta hilibka magaalada laga cunaa waa sida xaaladiisa nadaafadeed ama caafimaadkiisa waa sida way saameynaysaa xaaladdaas yani instead uu ka xiisan lahaa meeshu ka xiisan lahaa war yar oo ah in isaga la xayisiyo marka inay halka aadaan haddii wariyaasha lagala hadla marka maxaa keenay inay soo noqnoqoto oo sii socoto waxan oo xal looga gaar laaya waxay aamineen wariyaashu theory ah dadkii baa danaynaya dadkii baa xiisaynaya oo wixii markaan waxa siyaasadda ka shaqeyno dadku way qaadanayaan markaan ka warano hebel caayay dadkii way sii wadayaan laakiin markaan ka warano wax noloshooda saameynaya ma qaadanayaan hawarun yani way arkaan in la sheer gareynayo way arkaan laakiin ogow markasta oo lagu hadal hayo macnaheedu maaha wax fiican baad sheegtay xumaanta waa lagu hadal hayn karaa waan naqaanaa social media dadka ugu caansan waa dadka ugu afka xun deerfar hadaad u baahatid marka oo u baahan tahay hadafkaagu yahay aad ha lagu daawado iyo aad ha lagu sheer gareeyo oo aysan hadafkaagu ahayn nolosha dadka wax ka bedel kuwaas la mid noqonaysa tartanka halkaas ka soo gal maaha wariyanimadu maaha sidaas saxna maaha marka waxaan kula talinayaa wariyaasha iyo dadka warbaahinta iskale horta marka koowaad warbaahintii qorshe u sameeya objective u dejiya ogaada sababta barnaamijkan u baxay waa maxay ogaada sababta TV-gan ama idaacadan hawada ugu jirtay waa maxay sababta website-kan u shaqeynaya qorshe waa inuu jiraa waa inuu hadaf leeyahay wariyaasha waxaad ogaataan mas'uuliyad baa idin saaran amaana ku saaran qofka wariyaha waxaad la saaray oo dadka uu kaga duwan yahay amaano aaminaad ah dadkii baa ku aaminay aaminaada ay ku aamineen waa amaano waxaad u sheegaysid yuusan noqon wax siyaasi intuu kugu soo shubtay aadan hubin oo aad cid u adeegaysid oo waliba been aadan adigu lahayn iyo yani waxaan macno lahayn hadeegsan siyaasiga kaliya ma wadadka awood leh oo dhan ganacsada kamid ah hadii maanta ay ku casumaan shirkad dawladda soo dejisa oo ay ku yiraahdaan dawlad tayo baan keenay hubi inay dawladan tayo leedahay maxaa yeelay waxa laga yaabaa inaad intaad sii deysid dawo aan tayo lahayn oo aad tayo ku sheegtay in hooyada ay cunto adigu aad dawlada isticmaashid aabaha uu u dhinto dhibaatadeeda dad aad jeceshahay ay saameyso marka mas'uuliyadda ku saarani way ka weyn tahay wax yaro $50 $100 $20 $15 lagu iibsado way ka weyn tahay qiimo lacag ma goyso waxa u baahan tahay inaad qiyam lahaatid waxaad u baahan tahay inaad shakhsiyad fiican lahaatid daawade meel kasta adduunka ka joogto waan kugu soo dhaweynayaa inaad ka mid noqoto dadka ku xidhan page-kaygan si ay ku soo gaaraan barnaamijyo xeel dheeri ku salaysan warbixino iyo warar joogta